ilhaan cabdullaahi maxamed waa gabar yar oo 13 jir ah hooyadeedu cuuriyaan ahayd waxa qarax ku dilay maleeshiyaadka al-shabaab 14 abriil ee sanadkan. ilhaan waxay hooyadeed ku riixaysay kursiga dadka naafada ah meel ku dhow dhismaha wasaaradda tacliinta sare, halkaas oo ay al-shabaabku qarax gaari la beegsadeen. isla goobta ayay ku geeriyootay hooyo xabiiba maxamed faarax. ilhaan waxaa soo gaaray dhaawacyo, jirkeedana waxaa weli ku jira firiro. waxay nooga sheekaysay sidii ay wax u dhaceen. samarweena u soconay inta kuna sano biyo soo gaday xarunta oo wasaaradda agteeda geeskeeda fadhiisi biyo soo doonay saanta soo kala wareegsana qarax yaa la kulmay biyo inta way soo qaadaysay marka qarax noocay oo qarax mashey kar walaal laakiin noo hatan oo kala wadi noohay moota isla markiis ku dhaceen isla markiina wuu dhacay waxba arkaysi mugdi busti ay qarisay abaar kadibna soo ardana ay qabatay dadkii loo soo sheegay marka hooyo xagee ugu tagtay marka meesha ugu soo ortay naagay soo dumarkii maxamada bilaabatay meesha ka soo ortay hooyana meesha ugu soo tagay kadib hooyana wax gaareen goorma ogaatay markiiba waa ogaay saanta u kortagay musti ay qarisay meel dheer ka arkay inay meed tahay. ilhaan waxay weli la nooshahay naxdintii ay ka qaaday qaraxii lagu dilay hooyadeed. fasir uma heli karto sababta loo dilay hooyadeed, waxa kaliya oo ay og tahay in loo dilay si xaq darro ah. xasuusta wax xun ah dhacay maxaa dareemaysaa markaas adiga waxa dhacaan ma oyse waa oy yaa ku qabtay marka oyse naag ay wada nin driskeena aqoonsada kadib oo guriga geeyay kadib abtiyaala loo soo sheegay meedka waa gartay adiga kadib isbitaalka lagu keenay ka hor xaaladaas ee isbitaalka inta ku jirtay iyo xaaladii waa iska xumaatay. walaasheed maryan cabdullaahi oo xaamilo ah waxaa la dhigay isbitaal kadib markii ay la mirbeeshay naxdintii geerida hooyadeed. caafimaadii ma fiicnaata dhawarta maxamed cabdullaahi waa aabbaha dhalay ilhaan. waxa uu ii sheegay in xaaskiisa oo ka tagtay 3 caruura aanay cidna dembi ka gelin, uuna aad uga naxay geerideeda, balse waxa uu alla u sheeganayaa dhibta gaartay. والله درينك هو يلا أنا قلنا كله وأركض قرأت أسد حاجة وكتب مدنا وادمتي أفريق هين قفنا فايس كذا ريال ما كوا وغير الورها مسكين درينك كرتي كله نصيب رباني هو من الأسباب كجيفتا لا الحمد لله لا كان الحمد لله محدي كرم. hooyo xabiiba maxamed faarax waxay ka mid ahayd 10 qof oo rayid ah oo dhimasho iyo dhaawacba ka soo gaareen weerarkii al-shabaabku ku qaadeen dhismaha wasaaradda tacliinta sare. al-shabaab ayaa si xishood la'aana ugu faantay dilkeeda, taasoo caddayn buuxda u ah in kooxdu u aanqabto daadinta dhiigga bulshada oo dhan.